gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciid injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta ka hadlayay munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday dhameysatay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay qodobo ay kamid yihiin jabhad la sheegay in laga sameeyay buuhoodle waxaanu tilmaamay in jabhadaasi kaliya aanay khatar ku ahayn Soomaaliland balse waxa uu tilmaamay inay khatar ku hayso geeska Afrika oo dhan waxaanu ku eedeeyay jabhadaasi in laga masruufo magaalada Muqdisho dhinaca kale gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale saami qaybsiga isagoo madax dhaqameedkan ugu baaqay in aanay siyaasadda ka baxaan oo ay dib ugu noqdaan bahdii dhaqanka Faysal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wata waxa uu kale ka hadlay isla markaasina uu tilmaamay in Soomaaliya ay xilligani ay xaasid ku tahay horumarka iyo nabadda ka taabaqaaday Somaliland Faysal Cali Waraabe oo arrimahaas ka hadlayay waxa uu yiri waxa ogaateen Soomaaliya inay danteedu iska iloodo xoog isku geeyeen si ay noo xaasidaan oo inaga inoo undermine gareeyaan waxaan ka rajeynayaa qof kastaba inuu noqdo nabadgelyo ka shaqeeyo sida uu shalay sheegay channelku jaarkiina ogaataan wadaadka garka dheer ogaataan ka tamato wixirta eegaataan si kasta isku soo eejisiin cadowgeenu hadda waa ogtahay jabhad bay noo sameysay SSE la yiraahdo ayaa sameysay buuhoodle agtay ka sameysantay waxa weeye waxa usla muusaysan SSE maahe waa lagu jiraa wala kala ku jirta xamarna waa laga masruufaa taagooda madaxweyne waa in adduunka u sheegnaa jabhadaasi Soomaaliland qura khatar kuma hayso geeyigo dhamay khatar ku haysa ay walka waa inayna codkeena gaarsiinay madaxweyne aliyaad baan ku iyo kulmiyaba aan uga raalinahay sayimka doorashadii uga shaqeynayaan maanta inaga waxa inoo muhiim ah in doorasho noo dhacdo saddex xusbi markay heshiiyeen ku soo heshiinay doorasho dhaqaaqnay cadow badan baa sameysmay saami qaybsiga sheegay laga dadka ka hadlaya arrintu waxa la ciisaantu oo baroortu ciisaanta ka weyn saami qaybsiga lama diidiyay in Soomaaliland socotaa la diidaya islaaming seliski baa kacay marka aragnay inaynu heshiinay oo doonayna wax wada qabano common ground yeelanay doorashadaasi waxay noqonaysaa doorasho wanaagsan insha Allah taala cid inaga horjoog ka gartaana ma jirto inagoo inta ka liidana ayaa la damcayna bajari kala weyn maantana inagoo maanta ciidan ka haysana dadka oo midaysan yihiin doorasho loo midaysan yahay waxay nagu wanaagsan in doorasho nabadgelyo sameeyna dad wanaagsan oo iimaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala keena waxa weeye dalkan wuxuu leeyahay mustaqbal fiican baan Ilaahay istaraatiijiyad fiican baan dhigay Taiwan-ka aan soo dhaweynaa waxay noo keenay waxa weeye buqcadda Ilaahayna dhigay ayaa weeye inuu ka faa'iideysana weeye waxaanu ka faa'iideysanaa inaan midnimo aynu isku dul qaadanaa mikrofoonka iska daynaa salaadiinta u dirnaa magtayna guraan siyaasadda ay ka baxaan ayaa weeye asxaabta la nooleeyaa institutions la dhisaa adduunka waxa kala saara waa institution building waa inuu dhisnaa institutions inclusive ah oo loo wada dhan yahay oo laga wada muuqdo oo beelaha laga baxa beel bayna ragaadsan madaxweyne beelaha waxa laga baxaya waa cadaalad iyo waxay haysano oo si siman dadka loogu qaybiyaa weeye joon loo eegin gobolku ka soo jeediyo iyo reerku ka soo jeedee aqoontiisa qofka lagu meel mariyaan doonaa insha Allah taala waxaan halkay ku soo dhameynayaa hambaliyo inta marka aan doorashada ku jirnana insha Allah taala campaign-ka lacagtii uu baad noo hadhay madaxweynuhu lacag fiican buu balan qaaday shalayto waxaan jecelahay inta ina siiyaan international community moojane inta kale inuu dahabshiil iyo shirkadaheena inuu ka qaadi doonaan jecelahay insha Allah taala oo gacan ka geysan doonaan insha Allah Khalid Fantastic Television gobonimo Hargeysa